dhulka Soomaalidu ay degto oo maanta aan isleeyahay Hargeysa iyo Burco iyo meelahaanu tagnay meel Soomaali ay degto oo ka diin badan anigu ma arag waliba magaalada Hargeysa waxaaba la yiraahdaa waa madiinatul masaajid waxa ku taala malaha 560 masjid magaalada kaligeeda ma aanan arag magaalo masaajideedu sida u quruxsan yihiin hatta ki Nairobi dan kuma taalo sidoo kale masaajidu waxay ku taalaa faras magaalaha iyo shaarica weyn booska koowaad buu masaajidku ku dhacaya meelaha luuqluuqa iyo annaga aanu hadda dabaq dheer oo la dhisay hoostiisa wax yar ka sameeyna iyo ayagu boos weyn iyo wadada maxay ahayd qarkeeda hadana masjid weyn oo masaajidda waxaan ku arkay Carabaha Sacuudiga oo kale anigu Caraba badan ma tagin Maka iyo Madiina iyo meelahan tagay masaajid naqshad noocaas oo kale ah xagga diinta waxaan ku iri waa number 1 maxaan ku iri waxaan ku arkay Mooyaale iyo Mandera reerka dega oo aad garanaysaan oo Kenyaankan ah baan waxaan ku arkay ayagoo xirnimo u jooga Hargeysa xeer ku ah oo diin baranaya waxaan kale ku soo arkay waagii hore ay Soomaalidu jirtay iyo berigii hore waxa la oran jiray galbeed ba diinta loo doontaa waxaan ishayda soo saaray ama aan soo maqlay meesha ugu sareysa meel raasa la dhaho oo ku taala galbeedka oo xeer ah waxay u soo dirsatay niman wadaada ah Hargeysa u soo dirsadeen si ay diin qayb taala ay u bartaan kadibna meeshii ay ku laabtaan waxaan kale ku soo arkay musaabaqaad waaweyn oo quraanka ah oo 10 qiraa'ood lagu baranayo horta xagga diinta maanta ayada number 1 ah waxaan halka dhax gashanayaa marka Soomaalidu ma ogtahay waa ummad hadal badan waa oral society baa la dhahayo way hadlaan qarniyadii hadda ugu dambeeyay reeraha meelaha dega waxa loogu durxuli jiray waxa la oran jiray gaaladay ka agdhow yihiin oo marka maalmin dhaweed xataa mid Maxamed buu joogay ma aqaan reeruhu sameynayay reer hebel iyo reer labadaas mid buu kala doorsiinayay مثلا wuxuu oranaya dhul bahaante wali iyo miirqab uda isaaq buu ka hadlay wuxuu yiri islaam iyo gaalnimo waxaas uu yiri baan u maleynaya arrinkaasi hadda ma bilaaban wuu jiri jiray laakiin arrinkaas waa arrin dulmi ah maxaa yeelay tan iyo anigu intaan garanayay Soomaaliya garanayay ama aan ku garaadsaday ama aan maxay ahayday xan ku helay baarlamaanadii ugu horeysay ee Soomaaliya 60meeyadii baarlamaankii ugu horeeyay aadan cadde markii ay culimo u tagtay oo ay tiri kitaabka iyo diinta islaamka dalka lagu xukumo baarlamaankii oo dhan way ka hor yimaadeen ra'yiga culimada ay soo bandhigtay laakiin 2 nin ama 3 bay ahaayeen oo gobol reerka halka dega ama isaaqa toos u ah ayaa yiri anagu kitaabkaanu rabnaa Soomaaliyeey waligiin inaad gaalnimo iyo u shaqeynaysaan maanan u maleyn jirin maanta ka hor waa nimanka diinta difaacayay aniga hadda wadankan aan joogo hadda Kenya waxa masaajido wadankan laga dhisay xaqiiqatan oo Soomaali ay dhistay reerkaas xoogeeda dhisay nimankii isaaq oo wadankan joogay baa dhisay hadda maanta aan kula joogo waxay ka shaqeynayaan ama shalay aan kala qayb galay oo waa hadda masaajidkan 8ka aad garanaysid bay dhisayaan 42 masjid oo meeshan hadda ka hadlayo ku taala Kenya bay odayaal u yihiin oo ay gudi u sameeyeen Nairobi 3 masjid baa ku ooli jirtay section 1 section 2 iyo section 3 ayaga wada dhisay Thika maxay ahayday Eldoret Kitale maxay Kainuk Lodwa Kakuma Lukchokio xagan u dhaqaaqtan iyo Tanzania Samburu iyo halkaas aad reerku waa reer diimeed weeye laakiin xoogaa berigii isticmaalkii iyo siyaasadkii baa xoogaa dadku u kala dheereynayeen dawladnimada ama siyaasadda iyo waxa marka maxay meelahaas oo kale
baa laga yaabaa in loogu durxulayo laakiin xagga diinta maantana waa number 1 shalayna number 1 bay ahaayeen